Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan waxaana wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan kusoo dhawaada warka Samareeb TV. Qodobada warka Samareeb TV ugu door koronaya waxaa ka mid ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday oo shir uu dibadjoog ka yahay ka dhacaya magaalada Muqdisho. Kulankii baarlamaanka oo maanta lagu waday inuu dhaco oo baaqday. Faysal Cali Waraabe oo ka quustay aqoonsi ay hesho Somaliland hal sabab darteed. Muxuu yahay isfahamka ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada dalka? Midowga musharaxiinta oo kulan la leh wakiilada Midowga Afrika ee Soomaaliya. Qodobada kale ee dibadda ayaa waxaa ka mid ah dad lagu laayay weerar ka dhacay waqooyiga dalka Mozambique. Wadada ugu cusubtaan ugu soo biir subscribe saar gambaleelka nafur si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay halka aynu soo dhigno. Waa maalinimo Asniina taariikhda ay ku beegan tahay 29 Maaj 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday oo shir uu dibadjoog ka yahay ka dhacay magaalada Muqdisho. Beesha lixaad ee awoodda ku leh arrimaha Soomaaliya ayaa ku guuleystay in ay ishor fadhiisiyaan 5 maamul goboleed ee kala Puntland, Hirshabelle, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo kaga dhacay maanta xindhaabka hanale. Shirka ayaa looga hadlayay ajandaha shirka lagu xalinayo doorashada 2021 ee waqtigeeda dhaaftay, iyadoona kulanka maanta uu yahay midkii ugu horreeyay ee la ishor fadhiisiyo madaxdaasi. Shirka maanta ee 5 maamul goboleed ayaa dibadjoog waxaa ka ah madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee damac ugu jiray sidoo mar kale uu soo noqon lahaa talada dalka Soomaaliya. Lama oga sababta ka dambaysa banaanka looga saaray farmaajo shirka, walow beesha caalamka u aragto shakhsiga hor taagan dalka in ay ka dhacdo doorasho hufan oo la mid ah tii ka dhacday 20 sano ee la soo dhaafay. Guddoonka baarlamaanka ayaa fariin ogeysiisa u diray xubnaha baarlamaanka isagoo ku wargeliyay in kulanka baarlamaanka uu baaqday Isniinta 29 Maaj 2021 beddelkeedana laga dhigay Arbacada 31 Maaj 2021. Faahfaahin lagama bixin sababta loo baajiyay inkastoo loo badanayo laba arrimood midkood inuu u baaqday kulanka. Tan koowaad oo ah xildhibaanadii uu gudoomiyuhu ka mamnuucay kulamada baarlamaanka oo dhankooda ku hanjabay inay soo xaadirayaan kulanka iyagoo u arkay in gudoomiyuhu uusan awood u lahayn inuu ku mamnuuco kulamada. Tan labaad ayaa ayana ah beesha caalamka oo xalay gudoomiyaha la hadlay kulana talisay inuu baajiyo kulanka, waxayna cadaadis xoogan ku saareen guddoonka in lagu dheeraado wax walba oo carqaladeynaya heshiiskii 17 Sebtembar. Kulanka baarlamaanka wuxuu gudoomiyuhu iclaamiyay Arbacada soo socota 31 Maarso. Gudoomiyaha xisbiga awciida Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa qoys ka muujiyay aqoonsi ay hesho Somaliland isagoona sababtaasi ku sheegay inay tahay maamul xumi ballaaran oo xilligan haysata Somaliland. Faysal Cali Waraabe ayaa tilmaamay in aqoonsi la'aanta iyo in xuduudaha ay ku gudbi waayaan ay ka timid aqoon xumi, isagoo ku eedeeyay madaxweynaha xilka haya ee Muuse Biixi inuu xirxiray dadkii ka fikirka duwanaa iyo musharaxiintii xisbiyada kale ee xukuumaddiisa ka soo horjeeday. Gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo carabka ku adkeeyay in madaxweyne Muuse Biixi uusan Somaliland sii maamuli karin. Waxaa maanta halkan na dhigay ee xuduudihii gaari weynay waa hoggaan xumo. Ka fiirsada markaad wax codeynaysaan, qabiil ha eegine qofka hagaagsan oo wax qabanayo, caqli leh, iimaan leh ee ummadda isku wadi karaa ayaa la doortaa. Haddaad mid jabhad samayn kari waayay codsiisaan, hadda maanta falkii waa baylah waa ka ayuu yiri Faysal Cali Waraabe. Wuxuu intaasi ku sii daray afweyne dictator buu ahaa, wuxuu socod siin jiray, laakiin kani waxa uu socod siin karo iska daaye waxba ma qaban karo. Gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa ku daceystay in Ilaahay tuso shacabka Somaliland oo gacmaha isqabsaday si ay isaga horwareejiyaan Muuse Biixi oo hadda madaxweyne u ah. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee awciid ee Somaliland Faysal Cali Waraabe waxaa lagu yaqaan hadal adeega iyo in uu yahay siyaasi aan ka xishoon hadallada qaar oo wixii calooshiisa ku jira afka ka sheega xumaan ama ammaan waxay tahayba. Madaxweynayaasha 5 maamul goboleed dalka ayaa shalay yeeshay kulankoodii ugu waqtiga dheeraa, waxayna xog ay heshay warbaahinta sheegaysaa in dhowr arrimood la isla meel dhigay. Kulamada madaxdan oo galay maalinkoodii saddexaad ayaa diiradda lagu saaray xal u helidda caqabadaha ka hor gudban
qabsoomida shirka guud ee madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleed kaas oo gogoshiisu taalo teenada Afisiyoni ee xarunta Xalanle. Sidaan xogta ku helnay waxaa kulankii shalay lagu garfeeyay sidii loogu gudbi lahaa shuruudaha iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland ku xireen shirka guud ee xalka looga raadinayo khilaafka doorashada. Qodobada qaar ee ku jira shuruudahaas ayaa la sheegay in madaxda dowlad goboleedu ay isku raaceen in laga gudbo halka doodista qodobo ay ku jiraan sugidda amniga shirka Afisiyoni iyo in lagu heshiiyo ajandaha shirka guud ay ka hadalkooda madaxdu dib u dhigteen oo maanta laga wada hadlayo. Intii shirkaasi u socday waxaa ku soo biiray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, xildhibaanada iyo siyaasiyiinta gobolada waqooyi, waxayna madaxda maamul goboleeda u gudbiyeen talooyin iyo sida ay doonayaan in loo xaliyo muranka ka jira doorashada kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland. Madaxda dowlad goboleeda ayaa mar kale shirkood waxaa ku soo biiray midowga musharaxiinta iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga doorashada, shakiga la xiriira kulanka baarlamaanka ee maanta la baajiyay iyo hadalhaynta ka soo cusboonaatay muddo kororsi lagu dhaqaaqo. Sidoo kale xubnaha golaha midowga musharaxiinta ayaa intii ay ku sugnaayeen Xalanle waxay la kulmeen wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan AMISOM, waxayna kala hadleen amniga doorashada iyo inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo aysan amar ka qaadan madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday oo aan sharciyad haysan. Sida la qorsheeyay, madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa xalay la kulmaya madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna u gudbinayaan wixii ay shalay isla meeldhigeen madaxda kale ee Jubbaland iyo Puntland. Waa kuma sawir qaadii ka baxsaday wafdiga Soomaaliya ee Netherland u tagay dacwadda badda. La taliyaha dhanka warbaahinta ahna sawir qaadihii ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa ka baxsaday wafdiga uu la yimid Yurub. Xamza oo ahaa sawir qaade da'yar ah ayaa hadda isku dhiibay mid ka mid ah wadamada Yurub si uu u helo magangelyo siyaasadeed. Saraakiil ka tirsan xafiiska Mahdi ayaa baxsadka Xamza xaqiijiyay. Laba qof oo isnidaamiyay ayaa isku qarxiyay banaanka kaniisad Katoolig ah oo ku taala magaalada Makassar ee caasimadda gobolka Sulawesi ee dalka Indonesia. Ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkan. Argo Yuwono oo ah afhayeen u hadlay booliiska Indonesia ayaa u sheegay wariyaasha in ilaalada albaabka kaniisadda ay qabteen isnidaamiyaasha kadib uu bamku qarxay. Yuwono ayaa sheegay inaysan mas'uuliyiintu awoodin in ay waqtigan xaqiijiyaan inta qof ee la dilay iyo in qaybaha jirka ee ku kala firfirsan goobta ay yihiin kuwa isqarxiyay ama dhibanayaal ah. Wasiirka diinta ee Indonesia Yaquto Cholil Qamus ayaa si adag u cambaariyay qaraxan isagoo muuqaal uu soo diray. Waxaan ku boorinayaa dhammaan hogaamiyaasha diinta doontaba ha noqotee in ay u sheegaan dadkooda in ay jirin diin banaynaysay argagixisannimada, ayuu yiri Qamusa. Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa isna cambaariyay weerarkan isnidaaminta ahaa, wuxuuna ku amray taliyaha ciidamada booliiska in si qoto dheer loo baaro shabakadaha ay ka tirsanaayeen kuwa isqarxiyay, isla markaana la siibo xididada kooxdaasi. Indonesia ayaa muddo dheer waxa ay wajahaysay weerarada xagjirinta oo uu ku jiro weerarkii argagixiso ee lagu hoobtay ee sanadkii 2002 ka dhacay magaalada Bali oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. Xog aynu helnay ayaa sheegaysa in wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ay culays ku saarayaan madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu joojiyo safarada dibadda xilligan adag oo dalka ku sugan yahay marxaladda aan horey u dhicin. Dalabkan beesha caalamka ayaa yimid kadib markii ay ka war heleen in Farmaajo uu qorsheynayo safar dibadda ah, gaar ahaan booqasho uu ku tagayo Addis Ababa. Safarkaasi oo xafiiska Farmaajo uu daboolayo xitaana aysan xubnaha ku dhow ka warqabin safarkiisa. Sababta ay ugu dalbadeen Farmaajo inuu joojiyo safarada dibadda ayay ku macneeyeen in ay sii murjinayso cakinaanta siyaasadeed ee dalku ku jiro iyo isu soo dhawaanshaha la'aanta madax goboleedyada mucaaradka iyo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday. Farmaajo ayaa waxa uu qorsheynayaa safar maalin ama 2 maalin qaadan doona inuu ka tegi doono Addis Ababa, halkaasi oo uu
kula soo kulmi doono ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo naftiisa culeysyo siyaasadeed ka haystaan gobolka Tigray iyo ambaareynta hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo caalamka uu ku eedeeyay dowladdiisa in ay adeegsatay ciidamada Eritrea oo xusuuq baan ka geystay gobolkaasi. Lama oga in dalabka culus ee beesha caalamka u gudbisay Farmaajo inuu aqbali doono iyo in kale xilli madaxweynayaasha maamul goboleeda ay ku shirsan yihiin magaalada Muqdisho si xal looga gaaro arrimaha khilaafka doorashada. Ilaa iyo hadda ma cadda ujeedka uu Farmaajo ka leeyahay safarka. Tobaneeyo qof ayaa dhimatay kadib markii weerar lagu soo qaaday magaalada Palma ee ku taalla waqooyiga dalka Mozambique, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi. 7 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa la dilay xilli ay isku dayayeen inay ka baxsadaan goob hotel ah oo ku go'doonsanaayeen. Waxaa sidaasi sheegay Omar Saranga. boqolaal qof oo kale oo isugu jira ajaanib iyo dadka deegaanka ayaa sidoo kale wararka sheegayaan in la soo badbaadiyay. Magaalada Palma ayaa tan iyo Arbacadii waxaa weerar ku hayay kooxo mintidiin ah oo halkaasi ka dagaalama. Wararka ayaa sheegaya in kooxdan ay la wareegeen magaalada Palma, balse wararkani ma aha kuwo la xaqiijin karo maadaama isgaarsiinta ay goobtaasi ka go'an tahay. Arbacadii markii ay kooxdani mintidiinta ah ay weerarka soo qaadeen, waxay bartilmaameedsadeen dukaamada, bangiyada iyo saldhigyada military. Waqooyiga Mozambique ayaa tan iyo sanadii 2017 waxay ahayd goob ay koox Islaamiyiin ah weeraro ka wadaan. intaas aynu kusoo afmeerina warkii aad kala socoteen Samareeb TV. intaan warkan war London ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.